فيديو كان waxaan kaga hadlaynaa ama casharkeena kan maanta waxaan kaga hadlaynaa other applications of compound interest. Compound interest application yaal kale ay leedahay isticmaalo kale oo loo isticmaali karo ayaan kaga hadlaynaa. Ilaa hadda waxaan kaga hadlaynay lacagta iyo money, laakiin sidoo kale waxyaalo kale oo loo isticmaali karaa aan ku baran doono casharkan. Marka waxaa lagu dhahay we know that the more money you invest at some given interest rate I, the more dollars of interest you will earn. Marka the more money you invest at some given interest, the more money aad gashatid aad ku invest garaysid waxa weeyaan the more dollars or interest aad helayso. Taas waa iska obvious. Further, once you earn a dollar's interest, it becomes a part of the invested money and it itself earns interest. Haddana waxa weeyaan compound interest markii la joogo wixii dollar oo aad heshid oo interest ahaan u heshid waxa weeyaan wuxuu ka mid noqonayaa the invested money. Capital-kii buu ka mid noqonayaa oo asagana laftirkii interest buu soo saaranaya because compound interest markii la joogo waxa weeyaan capital-kaagii iyo interestiga aad heshid Soomaalian garan yani interest kasta markay ku soo baxdo haddana capital-kii baa lagu daray haddana interest-gii capital-kii isla capital bay isla noqonayaan haddana interest cusub bay samaysanayaan Soomaalian garan. Marka compound interest waxa weeyaan waxay leedahay characteristics oo ah in interest capital-ka interest uu soo saaro interest-ka dib waxay ugu noqonaysaa capital-kii haddana interest kale soo saaraysa unlike simple interest. Marka tilmaamtan this characteristics ayaa waxaa la dhahaa geometric growth. This characteristic is referred to as geometric growth ayaa la dhahaa waana midda differentiates compound interest from simple interest. Macnaha compound interest waxay kaga duwan tahay weeyaan simple interest. Simple interest capital-kii interest way kala duwan yihiin. Capital-ka interest ay soo saaraya interest-ka hal mar baa lagu daray capital-kii. Laakiin compound interest waxa weyn every period interest ay soo saarto capital-ka dib loogu celinaya haddana iyadii interest kale soo saaraysa. Marka characteristics ayaa waxa la dhahaa geometric growth ayaa la dhahaa. Okay, example ayaan qaadanayna. Example-ka koowaad waxa lagu dhahay a tree measured in 1983 contains an estimated 150 cubic meters of wood. A tree waa geed la mashaagaray 1983 contain an estimated 150 cubic meters of wood ayaa ku jira. Sanadku markuu ahaa 1983 geedkaas waxaa ku jiray 150 cubic meters of wood. If the tree grows at the rate of 3%, haddii geedka uu ku korayo at the rate of 3% per annum, how much wood is in the tree in 1993? How much wood ayaa ku jiray geedkaas in 1993? Soomaalian garan. Marka question-kan lacagta lama xariirtaya laakiin waxaan isticmaali karnaa formula-dan kusoo barnay compound interest si fiican u soo saarno how much wood ayaa geedkan ku jiray in 1993. Okay, marka example-ka koobaad saan ayaan uga shaqaynaynaa. Waxaan isticmaalaynaa isla formula-dan kusoo barnay compound interest. Marka compound interest waxay leedahay future value dartan raadsid oo s ah waxaad isticmaalaysaa s waxaa lagu yeelaa present value lagu dhiftay 1 plus I raised to power n weeyaan soma. Marka present value oo p ah waxay la mid tahay 1983 inta cubic meters oo wood oo geedka ku jira oo ah 150 meter cubic meters. Marka tan waxay noo tahay present value waxaan ka rabaa in raadino future value ay leedahay 150 meter cubic. Marka interest rate-ka I-na waxa weeyaan 0.03. Marka n the number of periods n waxa weeyaan waa 10 waa 10 because 1983 iyo 1993 meeqa u dhaxeeya waa 10 sano.
marka waxaan sameynaynaa formuladeena ayaan soo qaadanaynaa waxa weeyaan sida tan s waxaa lagu helayaa p di waa 150 soo qaado waxaad ku dhufanaysaa 1 plus 0.03 raised to power n oo 10 marka haddaad samaysid calculationka waxa weeyaan haddaad fogeysid waa 150 lagu dhufto 1.03 raised to power 10 marka haddaad isku dhufato waxaa kusoo baxay 202 cubic meters waa 202 marka macnaheedu waxa weeyaan timeline haddaan sawirano timelineka waxa weeyaan 1993 ama inta hoos aan ku qoro 1983 aan dhaho 1983 intana waa 1993 waa 10 sano marka intaas waxa weeyaan 1983 waxa ay 150 geedka waxa ku jiray 150 meter cubic oo wood 1993 na waxa ku jirta 202 cubic meters of wood marka the interest rate uu ku gurogaray waa meeqa waa r ama I aan dhaho I waxa weeyaan 0.03 termkan of course waa 10 years marka aragtiin waad isticmaali kartaa compound interest formuladeeda inaad si fudud uga shaqaysid waxyaalo kale oo la xiriirin lacagta example-ka labaad waxaa lagu dhahay the population of Australia in June 1947 populationka Australia 1947 wuxuu ahaa 7.58 million in June 1976 it was 13.92 million June 1976 populationka wuxuu ahaa 13.92 million okay part A waxaa lagu dhahay what was the annual growth rate from 1947 to 1976 waa maxay the annual growth rate marka hadda waxaa rabaa ratekii inaad soo saartay ratekii uu ku koreeyay populationkan laga bilaaba 1947 ilaa laga gaara 1976 part A way midaas part B ga waxaa lagu dhahay at this rate of growth at this ratekan of growth aad heshay part A ga aad ku heshay adigoo isticmaalaya when will the population reach 20 million people goorma ayuu populationka Australia gaaraya 20 million 1976 meeqay ahaayeen 13.92 million 20 million goorma ay gaarayaan goorma population gaaraya way part B wax la weydiinayo example-ka labaad waxaan ka rabaa waa populationkii waa populationka Australia ay ku saabsan yahay marka dan timeline keena sawirno marka koobaad timeline waxa weeyaan 1947 populationka meequu ahaa waa 7.58 million buu ahaa 1976 na populationka meequu ahaa waxa weeyaan waa 13.92 million sameeyaan garan marka waxaan ka rabaa rate-ka uu ku koray the rate of growth oo ay meeqa ay la mid tahay baatayga weeyaan marka caadi waxaan isticmaalaynaa isla formuladii future value s waxaa lagu helaa present value lagu dhiftay 1 plus I raised to power n n waa the number of years the number of u dhaxeeya marka s waxa weyn waa future value waa midkan waa midkaas waa 13.92 weeyaan waxay la mid tahay present value midkana 7.58 lagu dhiftay 1 plus I waanan garanayn u fiirso I waxaan ka rabo waa the annual growth rate sameeyaan garan marka waxa weeyaan
interest period keeno waa in years semi annually ma aha quarterly ma aha Soomaaliya waa in years marka the number of sanad oo u dhaxeeya the number of years oo u dhaxeeya 1947 iyo 1976 na waxa weeyaan waa 29 sano. Okay marka saasaysid waxa weeyaan waxaan rabnaa aayatan inaan helno marka tanaan dhankan iskiinana soo qaybinayna 13.92 7.5 kanaan dhankan keenayna marka waad u qaybinaysaa 7.58 iyo waxay la mid tahay leedahay 1 plus I raised to power 29 labada dhinac baan dhahnay divide by 7.58 inta markaad heshid waxa weeyaan labadan midan hadda isu qaybiso 13.92 loo qaybiyay 7.58 waxa ku soo baxaya inay tahay 1.836 soodan garan iyo waxay la mid tahay 1 plus I marka meeshan raised power 29 dhanka kale ayaan geenaynaa marka waxay noqonaysaa raised power 1 out of 29 soodan garan marka waxay la mid tahay labada dhinac ku dhuftay 1 out of 29 dhankanna aad gelisay times 1 out of 29 soodan garan waa the meeshan 29 times 1 out of 29 marka labada dhinac way cancelayaan moogtay by 29 1 by 29 1 marka waxa ku soo haraya 1 plus I kaliya soodan garan marka qaar waa laga tagaa stepkan because waa iska obvious hadaa dhanka kala geyso 1 out of 29 anyway dhankan waxay ku siinaysaa 1 plus I marka I bisan rabnaa dhankan ku reebno marka siday noqonaysa waxa weeyaan 1.836 raised to power 129 ayaad raadinaysaa ansadeeda kadibna halkaasaad ka jaraysaa marka waxay noqonaysaa 1.836 raised to power 1 out of 29 waxay ku siinaysaa 1.0212 ayaa waxay la mid tahay 1 plus I marka I bisan rabnaa dhankan ku reebna dhankan kale ayaan 1 ka jarayna ku soo haray 0.0212 hadda percentage bedesho waa iska 2.12% soomadan garan marka part A-ga interest rate-ka waxaan ka wadaa annual growth rate-ka waxa weeyaan 2.12% marka meeshan I-ga waxa weeyaan 0.0212 part B-ga waxaan ka rabaa inaan raadino goorta uu populationka 20 milyan gaarayo timeline-kani hadda haddaan sawirano u fiirso waxa weeyaan 1947 iyo waxaan haysanaa 1976 iyo meeshan oo x marka 1947 population wuxuu ahaa 7.58 million 1976 waxay ahayd 13.92 million x sanad kadib ama sanad markuu x waxa weeyaan 20 million marka waxaan ka rabaa inaan raadino meeqa sana kadib ayuu population ku gaarayaa 20 million weeyaan su'aasha part B-ga anagoo isticmaalayna the rate of growth kii aan soo helnay oo ah 2.12% marka isla formula aan isticmaalayna future value s waxa lagu helaa s waxa la mid ah p lagu dhuftay 1 plus I raised to power n marka present value waxa noo noqonaya 13.92 gan marka 13.92 lagu dhuftay 1 plus
I na waa tiyan hadda helnay oo waa 0.0212 raised to power n ma naqaano marka n baan qoraynaa ama t waxaad rabtaba. S-tanna waa 20 milyan ilan populationka wuxuu gaaray 13.92 laga bilaabo ilaa 20 milyan marka waa 20 marka 13.92 baan labada dhinac u qaybinaynaa marka waxay noqonaysaa 20 loo qaybiyay 13.92 waxay la mid tahay 1.0212 raised to power n. Somaalidan garan marka hadda waad isu qaybisay 20 iyo 13.92 waxaa kuu soo baxaya dhankan inay tahay 1.4368 iyo waxay la mid tahay 1.0212 raised to power n. marka log ayaad isticmaalaysaa marka log sifaad u isticmaasho waxaad leedahay log sifaad intan aad u heshid valuegeeda log baad isticmaalaysaa marka waxaad leedahay log 1.4368 ayaa waxay la mid tahay log 1.0212 marka inta meeshaad inta saari lahayd dhankan aad ku qoraysaa. Soomaalida garan waana sababta aan u isticmaalayno logga. marka n basaan rabnaa in dhanka ku reebno marka labada dhinac waxaad u qaybinaysaa maxay log 1.02 marka waxaad leedahay divide by log 1.0212 haddana dhankan sidoo kale log 1.0212 way soo qaybinaysaa. markaad isu soo qaybiso waxaa kuu soo baxay eventually n baa kuu soo baxaya. n waxay la mid tahay meeqa 17.28 inta waa dhibic 17.28 years macnaha waa 17 sano dhibic 7 sano kadib populationku wuxuu gaarayaa 20 milyan. Soomaalida garan oo markaa waa wax adig ku dhow x markaa waxay ku dhowdahay 1993 Soomaalida garan iyo bilooyin. Soomaalida garan 1993 weeyaan 0.28 adigu waa 1993 iyo 3 bilood meelahaas. inta waxaa iska dhada around adigu roughly 1993 weeyaan macnaha 1993 iyo dhowr bilood oo la socda 3 bilood populationkii wuxuu gaarayaa 20 milyan. inay muhiimadu waa inaad taqaanid inaad loo isticmaali karo compound interest waxyaalo ka duwan iyo sheegtid wixii aan soo marnay oo lacagta la xiriira. okay baadkii waxaan gaarnay exercise-ka adiga isku daysay try to yourself lagu dhahay. In 1985 to 1986 the average weekly earnings for all employees in Australia it was equivalent to US 358.50 per week. By 1995 to 1996 laga gaarayo it had increased to US 557.30 per week. macnaha 85 iyo 86 waxa weeyaan average weekly earnings oo shaqaalaha in Australia waxay ahayd $358.5 per week. 1995 ilaa laga gaaray 1996 kina waxa weeyaan uu korba u kacay wuxuu gaaray 557.30 per week. adigoo intaa waxa lagu dhahay part eega over this 10-year period what was the average rate of annual wage growth. waxaad raadaysaa the average rate of annual
wage growth يعني rate ka laga raba rate ka la weydiinaya uu ku kordhay wage weekly earnings again rate ka ku koreen baa la rabaa inaad soo saartid annual wage growth part B-gana waxaa la rabaa inaad soo saartid adigoo haysata at this rate of wage growth aad ku soo saartay part A-ga how long will it take for wages to double how long meeqa ku qaadanaysaa for the wages to double sifa ay wages ka double u gaaraan ay isu dablaan hadda meeqay gaareen markii ugu dambeysay 96 waxay ahaayeen US 557.30 meeqay ku qaadanaysaa inay double-keed ay gaarto oo marka 557.30 times 2-geeda goorma ay noqonaysaa somadan garan marka n ayaad raadinaysaa part A waxaad raadinaysaa R ama I redkii part B-gana waxaad raadinaysaa n okay waa hagaag dhamaadkii cashirkeena kan ayaan gaarnay sidaas waxaan ugu dhamaaday chapterkii labaad oo compound interest ah insha Allah chapterka cusub aan bilaabi doono waa annuities markaas waa annuities waa chapter aad iyo aad muhiim ah taasna daawada walaalayaal waxaan rabaa dhamaadka videogan inaan idin tuso habka aad website Facebook page keena aad ugu soo biiri kartiin marka meeshan Facebook search-ka ayaad imanaysaa waxaad ku qoraysaa schoolka magaciisa waxa weeyaan waa waxbarasho school yani website page keena laakiin search-ka hadda badan waxa ku soo baxaya waxbarasho af Soomaaliya inta ku qoraysaa waxbarasho af Soomaaliya ku qoraysaa waa magaceeni ugu horeeyay marka Soomaalitiin magacan schoolka waxbarasho school kan ayaad ku dhufanaysaa soo marka waxa weeyaan page keeni waa kan soo garan dadku cusub tahay follow aad leedahay waad like garanaysaa waad saas ugu soo biiraysaa soo garan meeshan aan badanaa ku qornaa sheegtid update keena soo garan hadda waxaan bilownay course oo ah mathematics of finance cashiro cusub aan soo saarayno sheegtid cashiro cusub hadda dhawaan soo saari doono YouTube keena channelka YouTube kan soo saari doono waa cashiro ku saabsan mathematics of finance marka wixii post ama announcement ah inta ku soo biira channelkan ku soo biira waxbarasho school ku qoran kana waa logeeni sameeyay arkin logen noo saaran YouTube ka waa kan marka meeshan waxaad ku qoraysaa waxbarasho af Soomaali waad ku qoraysaa hadda waxbarasho school ku qortay waxa weeyaan kuma soo baxay because waa magac hadda cusub aan u saarnay schoolka marka waxbarasho af Soomaali aad ku qoraysaa channelka ku soo baxa ugu sareeya ayaa weeyaan kaasaad ku dhufanaysaa linkigan soo idankan markaas sameeyo sifaad ugu soo biirtiin page keena like gareeya la socda waxa weeyaan wixii update intaan ku qorina wixii commentana intaad ku qori kartiin insha Allah mahadsanidin